دولار وو دنبيله وين ولبا وان شغل laga qabta marka waxaan oo lahaa Saleeban oo halkiisa guba waxa la yiri qurux kuma sidan karo mindina kuma sari karee sanka buro ku taalay maxaa kugu sameeyaa inaad hore waxaad noqoto buro ummadda inuu ka dhalanay sharafta le sanka kaga taalay ummadda sanka uga go ilaahay baana wax ku siiyo arsaaqada dhantanayso Xildhibaan Ahmed Nuur Guruuje oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu ka hadlay hadal maalintii shalay ka soo yeedhay Saleeban boqor Cismaan kaasi oo uu ku durayay Korneyl Doolaala waxaana uu sheegay in xildhibaanku si weyn ugu tilmaamay suurtagalnimada waxyaabaha uu ka hadlayay isagoo dhaliilo culus tusha u saaray waxaana uu su'aal galiyay in uu yahay suldaan kamid ah beesha uu ka soo jeedo xildhibaanku waxa uu si gaar ah u dul istaagay isla markaana hadallo qaaf uu ku tilmaamay hadalkii maalintii shalay ka soo yeedhay waxaana Ahmed Nuur Guruuje uu hadalkiisa u dhigay sidan ninka la yiraahdo Saleeban Cismaan Xasan arinta uu ka hadlayay waxa isugu jirtay laba mowduuc wuxuu la hadlayay nin Korneyl ah oo la yiraahdo Korneyl Doolaal oo hore miidiyaha uga cabanayay ciidanka qaranka arrimaha ciidanka qaranku waa arrimaha siyaasad ku shaqo lahayn oo aanay ahayn in dadkan ciidamada ahayna ama shaqadooda aanay ahayn ay dhax galaan anigu arinta Korneyl Doolaal waxba igama qusayaan waxba ka oran maayo gudoomiyihii arrimaha amniga iyo difaaca golaha wakiilada maadaama aan ahayna mowduucaasi mid anigu aan saxaafada ahaan kaga hadli karo maaha imana qusayo arinta labaad ee ninkaasi ka hadlay waa mid aniga ku saabsan arintaas baan kalbad ka oranayaa oo ninkaas Saleeban Cismaan Xasan la yiraahdo waxaan arkaa ganacsadaha aanka ah ee la yiraahdo Ahmed Cismaan Geelle oo dawladda Jabuuti ay haystaan isagoo jawaabaya oo ganacsadaha eedeynaya waxaad arkaysaa nin Korneyl oo ciidanku ka tirsanaa la hadlaaya isagoo jawaabaya waxaad arkaysaa nin xildhibaan ah oo golihii wakiilada shaqadiisu ahayd jooga isagoo jawaabaya waa ninka sidii ninkii ruwaayada ku jiray la oran jiray xaaji mataan beel walba iska galayeen briig balahay magaca uu sheeganaya suldaankuna inkastoo aanu jirin oo suldaanka guud ee qoyska iyagu yahay suldaan Yuusuf Maxamed Xiiro isna la doortay beel suldaannimada uu kala yimid anagu aan ogeyn haddana dibaato naga haysato maalin walba ashtakiya cabasha nooga timaada dadka aanu shaqo ku lahayn ee iska maagayo Soomaaliduna waxa ku mahmahdaa sankaaga oo buro ku taalo lama gooyo wuxuu nagu noqday buro sanka naga taala maalin walba waxaan shaqo ku lahayn oo eedabu noo soo hooynaya marka waxaan lahaa Saleeban oo halkiisa guba waxa la yiri qurux kuma sidan karo mindina kuma sari karee sanka buro ku taalay maxaa kugu sameeyaa inaad hore waxaad noqoto buro ummadda inuu ka dhalanay sharafta le sanka kaga taalay ummadda sanka uga go ilaahay baana wax ku siiyo arsaaqada dhantanayso